Xildhibanka Bariga Wajeer Rashid Qasim ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Riba ee dhacda Bariga Wajeer halkaas oo ay shacabka ugu soo baxeen duleedka magaalada. magaalada Riba oo in ka badan 25 sano biyo la'aan ahayd ayaa waxa uu ka hirgeliyay mashaariic biyo waxaa kale oo maanta siyaadad noo ah in maanta aan dayactir hayna aan hirgelin hayna shayga la yiraahdo River Water Supply and Sanitation ay tahay oo guryaalka 100 aqal ay maanta aska taagan yahay tuubo ay ka taagan ma jirtaa mise ma jirta intuu gacanta inay markaas aad jira iyo inaad itusin halitus soo ma jira ma jira mise ma jira inta qaf oo meeshan istaagan oo aqalkiisa tuubadaas ku xiran yahay oo awal garaangarinay gabdhaha inay ka reesteen jarganka la garaangarinay gacanta halitus soo ma jirta أنا waxaan rabaa midaan leeyahay aniga ninkii garab ii noqona dhageysta abba dhageysta wixii aniga sharaf ii ninkii dhulkaan wax ka qabta oo ummadaan waxaan u hayna garab noo noqdo on sharaf dhinacayna ka joogo Mr. Rashid ayaa dhaliil weyn u soo jeediyay dowlada Wajeer isagoo wax qabad xumo ku tilmaamay waxaan haysanaa county government oo 13 bilyan ay soo gasho sanad walba ay soo gasho ay jirta hadda waxaan aaminsanahay 3 sano oo wasiir oo dawlad ay haysteen 27 bilyan ayaa soo gashay markii la xisaabo cadad 9 bilyan shillings reeriba maanta waxaad ka sheegin kartiin sheega maxaad ka sheegatiin county government maanta waxa ka sheegatiin wartaan oo lagu danaysanay oo dad lagu danaysanay oo wiil magaalada loo keenay mooge maxaa kale oo ziyaado 3 sano ka yeeshay war markaan anaga steamerka keenin waa markii water supply gaan aan keenin markaan network aan keenin gaal secondary school aan keenin ayaka buhurday ku jireen intee ku maqnaay waxaan leeyahay fartiintan u farayna waxa waaye hurdada inay ka kacaan hurdada halaga kaca dhanka kale shacabka ayaa soo dhaweeyay mashaariicda horumarineed oo xildhibaanka ka fulinayo deegaankaasi ilaa hadda 3 sano oo hadda 2017 ka dambeysay xildhibaanihii hore ka duwan ayaa noo soo galay ilaahay khayraasi waan u duceynay khayr ilaahay xildhibaankaas lagu magacaabo maxamed Rashid Qasim taasoo sababteeda ay tahay meeshan waa ninka xildhibaanka ugu horeeyay oo u bilaaba warisgaarsiinta Safaricom madda ku xigta waa ninka u bilaabay xildhibaanka u bilaabay steamerka loo yaqaan solar system magaalada asqarniga inta jooga steamer imaada ugu jirin ninka u bilaabay waa steamer bilaab waa ninka u bilaabay xarada security oo ciidanka dawladda ay leedahay ninka u bilaabay waa maxashmaaga u bilaabay oo iskuulka girls secondary waa ninka bilaabay 120 aqal inay aqal kasta iridis biilge waa ninka u bilaabay 6 ruux oo kala cid oo bilcaan project u bilaabay waa ninka u bilaabay 6 ruux oo rag oo kala cid u bilaabay project in la siiyo maxamed Rashid Qasim waan ku soo dhaweynaa riba waan ku soo dhaweynaa asan salaamana leedahay markaan inta riba joogno big daarinayno gafana doornin oo inta soo marnay gafani hore aan soo doornay imbiyalka hore soo door imbiga intaas qabtay nima qabta ma arkay ka kale waxa ballamo noo qaaday badi waa u qabtay maxay yaray safarkoo maan anoo baahidaynaheed safarkoo waa noo qabtay banaankaas ahay waa noo qabtay iskuulka gabdhaha waa noo dhisay meesha leenka askarta kaamiyalka ala magaan waa noo dhisay dirbi waa nagu wareej biye koos walba aqal walba koos loo ayna aad inkastoo ala magaan ay dadka baahida wal gaari ways